نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisadeenna maanta waxay ku saabsan tahay nebi ibraahim iyo saddexdii malag ee u yimid. ibraahim calayhi salaam markii uu ka soo laabtay xaaskiisii haajar waa nebi ismaaciil hooyadii oo uu kaga soo tagay maka wuxuu ku soo laabtay xaaskiisii kale ee saarah. sidaan la soconno nebi ibraahim wuxuu ahaa deeqsiile aad u jeclaa inuu martidiisa aad u soo dhoweeyo. haddaba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ahayd inay ibraahim u yimaadaan marti. waa 3 qofood oo wejiyadooda quruxda iyo dhaldhalaalka ka baxaya uu la yaabay, mana uusan garanayn 3duba cidda ay yihiin. waxay ku yidhaahdeen, nabad korkaaga ha ahaato. wuxuuna ibraahimna ku yidhi, nabad dushiina ha ahaato idinkana, waxaad tihiin dad aan aqoon u lahayn sidaan arko. nebi ibraahim calayhi salaam waa uu soo dhoweeyey martidiisa. wuxuu markaasi u tagay xaaskiisa oo ku yidhi, ma garanaysaa martidaani? waxay tidhi maya. ibraahim martidii ayuu mar kale eegay isaga oo la yaaban. haddana wuxuu u jeestay xaaskiisa oo ku yidhi, wax ay cunaan martida ma haysaa? waxay tidhi, waxaan hayaa wax yar oo hilib ah. markaas ayuu ibraahim ka xishooday inuu hilibkii yaraa u geeyo martidiisa. ibraahim wuxuu markiiba soo qabtay dibi aad u buurnaa, isaga oo bilaabay inuu shiilo dibigii oo dhan. wuxuuna ugu talagalay 3dii qafood ee martida u ahayd ee gurigiisa dhex fadhiyey. saa markii dibigii shiilnaa uu soo agdhigay iyagii martida ahaa, wuxuu arkay inaysan wax doonis ah muujin, yacni wuxuu arkay inaysan doonayn inay cunaan hilibka. ibraahim waa uu la yaabay martidiisa. wuxuu bilaabay inuu ku dhiirigeliyo cunista hilibkii, isagoo cad yar ka soo goostay hilibkii. laakiin wuxuu arkay inaysan dan iyo xaajaba ka lahayn cunista hilibka hortooda yiil. ibraahim markiiba waxaa gashay cabsi xooggan, mana uusan ku waafaqin dhaqankoodii layaabka lahaa. ma uusan dhihin, maxaa idinka qaldan dad yahow, maad cuntaan hilibkan, ee waa uu ka aamusay. markaasuu ibraahim go'aan qaatay oo bilaabay inuu su'aalo weyddiiyo. wuxuu ku yidhi, kumaa tihiin idinku? maxaa halkan ka dhacaya? isku kay sheega. markaasay ku yidhaahdeen, ibraahiimow ha cabsan, innagu ma nihin ibnu aadam, waxaynu nahay malaa'ig. alla weyne wuxuu inoo soo diray in aan ku soo gaarsiinno 2 fariin. markaasay malaa'igtii waxay ibraahim u sheegeen inuu alla soo amray in ay baabbi'iyaan oo dhulka la jaraan qoomkii luud. saa markii ay sidaasi u sheegayeen ibraahim, waxaa maqlaysay xaaskii ibraahim ee saarah. waxay markiiba ku faraxday iyadoo qoslaysaa in qoomkii luud ay ku dhacdo carada alle. saara markii ay ku faraxday fariintii ay malaa'igta u sheegayeen ibraahim ee ahayd inay baabbi'in doonaan qoomkii luud, waxay malaa'igtii u sheegeen iyadii saare ahayd fariintii labaad ee alle ka timid, inuu alle ugu bishaaraynayo wiil, midkaas oo lagu magacaabi doono isxaaq. markaase waxay tidhi, oo ma waxaan qaadi doonaa ilmo aniga oo da' ah, oo halkaanna waxaa ah ninkayga oo oday gaboobay ah? saa markaasay malaa'igtii ku yidhaahdeen, oo ma waxaad la yaaban tahay xukunka alle, naxariista alle iyo barakooyinkiisa korkiina ha ahaadeen reer ibraahiimow. allah waa ammaan badane sharaf badan. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. markii ibraahim cabsidii ay ka bacday maankiisa ayuu wuxuu bilaabay inuu malaa'igtii kala doodo arrintii qoonkii luud. maxaa yeelay ibraahim calayhi salaam weligii alle kama baryin dadkiisa inuu ciqaabo, wuxuu ahaa mid mar waliba u duceeya.
wuxuu yidhi waxaad u socotaan inaad baabbi'isaan qoomkii luud maxaad u siin weydeen wakhti waa intaas ay kaga soo laabtaan dembiyadooda foosha xun soo ma ogidiin in qoomkaasi ay ku dhex jiraan dad mu'miniin ah soo ma ogidiin in luud uu iyagaasi ku dhex jiro idinkuna waxaad doonaysaan inaad dhulka la jartaan saa markaasay malaa'igtii saddexda ahaa ku yidhaahdeen ibraahiimow arrinta aad ka hadlayso waa mid uu alle asteeyey dhiciddeeda waxaa hubaal ah inaysan waxba gaari doonin dadka mu'miniinta ah ee ku dhex jira qoomka luud go'aanka allana dib looma celiyo ibraahiim intaasi kadib wuxuu xaqiiqsaday in nebigii alle ee luud uu nabadgelayo iyo intii isaga raacday markaasay saddexdii malag ka tageen ibraahiim ayaga oo u dhaqaaqay halkii uu alle u cayimay inay aadaan haddaba ma garanaysaa saddexdaasi malag ee ibraahiim martida u ahaa waxay saddexdaasi malag kala ahaayeen jibriil miikaa'iil iyo israafiil نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي قصوينك نبيذا